kulankan oo ay hogaaminayeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka gobolka Erara kana soo qayb galeen dhammaanba hogaaminta dhexe maamulada degmooyinka gobolkaasi ayaa waxa looga wada hadlayay dariiqa ugu habboon ee lagu samata bixin lahaa bulshada la ildaran baahidan ay keentay abaarta dabiiciga ah ee ku nool gobolka Erara. Mudane Axmed Cali Xuseen gudoomiyaha maamulka gobolka Erara oo ugu horeeyay si qodo dheer ula hadlay maamulada degmooyinka gobolkaasi ayaa sheegay in la galay xilli adag oo shacabku la liitaan baahidan ay keentay abaarta dabiiciga ah loona baahan yahay in dhibtan lala qaybsado shacabka ku nool tuulooyinka miyiga wuxuuna maamulada degmooyinka ku booriyay inay shacabkooda u huraan nafiya maalba wixii awoodooda ah dhammaan deegaankeena inay ka jiraan abaaro aad u ba'an khaasatan gobolkeena Erar inay abaarahaas ka jiraan abaartaas oo aad moodid in jilaalkii hadda la bilaabay bilaha soo socdana ay yihiin jilaal cabsi badanna ay jirto marka maanta waxaan rabnaa abaartaas noocaas ah in maartay gurmadkaas iyo qaabkii laga hortagi lahaa ee bulshada iyo xoolahaba aynu badbaadin lahayn inaan falkeeda galno guntiga dheesha iskaga dhigno aan qaybsano shaqooyinka la qaybsado guddi waxaa jirta joogto ah oo yawmiyan shaqadaas qabanaysa la dhisay heer deegaan heer gobol heer degmo ilaa heer qabanaysa soo dhacayna hadii la yiraahdo guddidaasi shaqadeeda koobaad waxay noqonaysaa arrimaha abaaraha sida biyo dhaamka sida maxay ahayd calafka xoolaha meesha lagu dooni lahaa raashinka dadka siiba dadka xoolaha wada ee xoolaha dhaqaya rafaadsan meelaha maxay ahayd ceelasha ee xoolaha keenayaan ee ka waraabinayaan si loo quudin lahaa dadkiin u baahan yahay quudin xoolna way u baahan yihiin marka arintaas waxaan rabnaa in dhammaan degmooyinku ay maartay ku baraarugaan cid kasta oo maartay degmada mas'uulka ah shaqada koobaad ay ka dhiganaysa inay tahay shaqada abaaraha bilahan soo socda hadii la yiraahdo ilaahay hadduu roob keenana waa saan rabnay laakiin inta ka horeysa inuu nin waliba mas'uuliyadiisa koobaad uu ka dhigto taasoo la isku xisaabtami doono cid kasta oo hawshaas loo diro ama mas'uul ah in lagu xisaabtami doono hawlaha abaaraha inaan ogaano yawmiyan ama daily aynu maartay samayn doono report lagu kala qaadan doono wixii dhaliilaha jira aan ku saxayno wixii marka heer deegaan iyo heer gobol iyo heer degmo ee dawlad ahaan aynu qabanay waa sidiisa waan qabanayna hadii la yiraahdo dadaalkana waa in 100% aan ka dhigno dhinaca kale waa in lagu baraarujiyo waxaan rabnaa bulshada sida hadda ka horba sheegnay maalqabeennada qurba joogta dadka ganacsada ah in aynu ku baraarujino oo lagu wacyigeliyo inuu dadkooda ay maartay barmadaan wixii ay qaban karaan ay qabtaan haday biyo tahay iyo haday raashin tahay iyo calafba intaba inay maartay ay qabtaan waxyaalaha maartay barbagaandada ee dadka qaarkii ama horumarka nacab ama wanaaga aan jeclayn ay uu sheegayana in iyadana maxay aynu kaga jawaabno shaqo wanaag bulshada shaqo wanaag la tuso cadaalad la muujiyo karti aan muujino wixii dhaqaalaha ee la hayo iyo wixii xoog la hayo aynu maartay xooga saaro arrimaha abaaraha si dadka looga samato bixiyo hadii la yiraahdo dhanka kale maamulada degmooyinka gobolka Erara ee shirkan ka soo qayb galay ayaa si adag uga hadlay sida ay u garab taagan yihiin shacabkooda habeen iyo maalinba waxaan yaqiinsanahay deegaankeena inay soo foosartay abaar badan taasoo u baahan in aan garab istaagno shacabkeena maanta haday tahay biyo haday tahay cunto iyo haday tahay cawsba marka waxaan naga go'an anoo ku hadlaya gudoomiyaasha degmooyinka gobolkan Erar inaan maalin habeen u shaqayn doono ka jawaabitaanka abaaraha wixii propaganda ee suuqa ku jira inaan kaga jawaabi doono shaqo wanaag kulli waqti xaadirkan hadda aan ku jiro bulshadeena waxa soo food saartay xaalad abaareed taas oo waxa weeyaan saameysay waxa weeyaan dhamaan saddexdii ximeesi ee waxa weeyaan xoolaha waxa weeyaan bulshadeena ku tirsanayd taas oo haddana waxa weeyaan dadka haddana waxa weeyaan ay ugu xigto waxa weeyaan ay soo saartay culays fara badan taas oo u xirmeen hadda dhamaan goobihii saan ognahayba goobihii waxbarashadu ka degmo ahaan hadda degmada iyo xob ahaan ilaa at least 4 dugsi way xirmeen hadda oo xirmeen xaaladan abaaraha ay saameysay goobta markii lagu waayo waxa weeyaan biyihii dadkii iyo bulshadiina waxa weeyaan ay ka kala guureen waqtigan hadda aan ku jiro in bulshadu waxay u baahan tahay badbaado u baahan waxaan baaq aan u dirayna waxa weeyaan dhammaan inay ka qayb qaataan waxa weeyaan xaaladan abaareed ee soo food saartay bulshada dhammaan
haddii ay tahay waxa weeye maalqabeennada qurba joogta dhalinyarta aqoon-yahanka dhammaan bulshada qaybaheeda kala gedisan gaar ahaan qurba joogta in ay ka qayb qaataan kaalinta ugu fiican ay ka qaataan baan baaq ahaan ugu diri lahaa bulshadan waxa weeyaan si aan ugu badbaadino xaaladdan hadda ay ku sugan yihiin annagu haddii aan ka maamul ahaan nahay aniga oo ku hadlaya waxa weeyaan magaca guddoomiyaasha gobolka Erer gaar ahaan degmada Yoxoob waxaan ballan qaadaynaa oo diyaar u nahay annagu heegana aanu nahay sidii baaqa aan waxa weeyaan xaaladdan ka jawaab baahida ka timaada bulshada sidii aan uga jawaabi lahayn jawaab degdeg ah aan uga bixin lahayn wixii karaankanaga ah inaan uga bixino si degdeg ah kulankan ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka gobolka Erara iyo hogaaminta dhexe dhammaanba degmooyinka gobolkaasi ayaa la isla qaatay in hal meelaha looga soo wada jeedsado sidii loo samata bixin lahaa bulshada la ildaran baahidan ay keentay abaarta dabiiciga ee ku nool gobolka. Cabdikaafi Axmed Weli, SRTV, magaalada Fiiq.